daarul bilaal oo masaajid cusub oo laga hirgeliyay xaafadda dhaadhun ee magaalada melbourne waddanka australia. dhismaha masjidkan ayaa ka kooban qaybo ay ka mid yihiin goob lagu tukado salaada, dugsiga qur-aanka lagu bara ardayda, howl lagu talagalay shirarka iyo xafladaha, iyo qaybo kale. culamada halkaasi ka hadashay ayaa si qoto dheer uga warramay ahmiyadda masjidku u leeyahay ummadda muslimiinta ah. ugu horreyna waxaa ka hadlay sheekh axmed, hadalladiisina waxaa ka mid ahaa sidan tani: inaynu halgankii dheeraa ee aynu soo maray ee ku saabsanaa in dhidibada loo dhigo daarul bilaal center, in dhidibada loo dhigo meelaynu ku cibaadaysanno, meelaynu carruurteenna aynu qur-aanka ku anqarinno, meelaynu isugu nimaadno xafladaheenna iyo howlaheenna diimeed aynu ku gudanno, inaynu caawa salka ku hayno amba caawa aynu daah furayno. allaha inoo suurto geliyey ayaynu mar labaad u mahadnaqaynaa. bilaal waa masaajid, waa madarasad, waa meel dadku ay isugu yimaadaan, khaasatan soomaalideenna ku dhaqan magaaladan melbourne ee australia, weliba khaasatan melbourne iyo maaragtay south eastigeeda. waxyaabaha aanu qabanno daarul bilaal center waxaa ka mid ah xagga waxbarashada aanu wax ka qabannaa, xagga mu'tamaraadka iyo shirarka islaamiga ah ayaanu wax ka qabannaa, xagga iftaarada iyo afurada ramadaanta ayaanu wax ka qabannaa, xagga ciidaha iyo celebrationka ciidda ayaanu wax ka qabannaa, muxaadarooyin islaama ayaanu. qiimaha lagu iibiyey meeshana waxa weeye 775,000. marka mujtamaca halkan degan ilaahay ka jazaasiye aad bay u dadaaleen. lacag ilaa 200,000 ayaa markii ugu horeysay la aruuriyey. lacagtana waxay noogu jirtay bangiga islaamka oo efsol la yaqaan, oo iyagu bixiya deyn riba la'aan. waxaan rabnaa aan ogaano community-ga hadduu yahay community aan lahayn center lahayn, maalin walba teleefanadaas u dirdirnaa. waxaan lahnaa mataqaanaa masaajidka Bristol waxaa laga tukanayaa maalintaas, masaajidka Harlem waxaa laga tukanayaa maalintaas. hadda wixii ka dambeeya teleefon buu yeelanayaa masaajidkan, telefoon baan ku yeelanaynaa halkan information center leh. waxaan u sheegaynaa community-ganaga saabistiga wixii information ah ee soomaalida ku saabsan, ama ha ahaato xilli ciid, ama ha ahaato dana qaasa, ama ha ahaato wiil la xiray ama gabar la xiray. waxaan doonaynaa in meel aan isugu imaano oo danaha naga personalka ah aanu yeelano. waxaanu yeelan doonaa hadduu laa yidhaahdo number aan rajaynayay already weekend in la soo xiro, laakiin waxa weeyaan talastra ayaa lagu soo daaday. marka numberka waa qaybin doonaa hadduu laa yidhaahdo, informationka anaga aan ku kala qaadano. waxaan yeelanaynaa internet, waxaan yeelanaynaa hadduu laa yidhaahdo kombiyuutaro badan baa noo yaallo, waan xiraynaa oo waxaan yeelanaynaa meel informationka anaga aan ku kala qaadano. oo aad ka fiirsataan website-ka daarul bilaal hadduu laa yidhaahdo dhowaan aad ka fiirsataan daarul bilaal website-keeda wixii information ah soomaalida saabistiga degan iyo arrimahooda ku saabsan. waxaan rabnaa website-kaas inuu ahaado website la update gareeyo. dhalinyaro badan baa qabnaa jaamacada. qof walbaba wuu ogsoon yahay ummadda islaamka ah, yacni meesha uu masaajidku uu ka taagan yahay dadku way wada garan hayaan, oo waa maaragtay hadde waa baytullaahi, waa guriga ilaahay oo lagu magacaabahayo. yacni meel walba ilaahay baa iska leh, cirka iyo dhulka iyo wax walba ilaahay baa iska leh. haddana si khaas ah ayaa maaragtay masaajiddii waxaa lagu magacaabay buyuutullaahi baa lagu magacaabay. marka waxaa weeyaan waa litashriif, sharafteeda ayaa maaragtay loogu magacaabay in yacni maaragtay baytullaahi la yidhaahdo. ahmiyadda uu yacni maaragtay masaajiddu ay leedahay, nabigeenna salawaatullaahi wasalaamuhu calayh markii uu soo hijrooday oo uu maka ka soo hijrooday, madiine u soo hijrooday, oo uu magaaladii madiine uu yimid isagoo aan maaragtay meel uu ku hoydo iyo meel uu saldhigo midna aan samaysanin, oo marti ah oo dad yacni maaragtay kor saaran, ayuu wuxuu bilaabay masaajid buu bilaabay. marka meeshaas waxaad ka garanaysaa yacni waxa ugu qiimaha badan
ee bulshada muslimka ah ay ku tallaabsato waxa ugu horeeya oo ugu fiican masaajidda weeyaan. waxa inagu waajib ah in qoys kasta oo degan South East Tranku in uu magaranaysa uu ogaado inay tahay meeshani meeshoodii oo imika ayna tahay meel inagoo aan iska leenahay. haddaynu idhaahdo dee waynu iska leenahay waxa weeye dee howlo badan baa ka dambeeya oo ah in laynaga doonayo in aynu magaranaysaa aynu ku tabarucno wixii magaranaysaa aynu meesha u samaynay. walaal cabdi wahan Hon Cable TV magaalada Melbourne waddanka Australia.